dhalinyaradan waa dhalinyaradii soo dhaweynta isku diyaarinayo oo raba in ay soo dhaweeyaan gabadhaas. gabadhan iyo marka waxaan isdagaalay Bilaal Bulshaawi sida la sheegayna Bilaal Bulshaawi gabadhan wuxuu hoogo yar u diiday in ay la kulanto Sundus iyadoo ka xanaaqday oo hoogo arintaas ay ka gadooday buuq badan meesha ay ka sameysay yacni waxay door biday halkii isbadbaadin lahayd inay ka baqdo dhibta ay hadhow u geysan lahayn waxay isbarbar dhigtay ilmahan yar dhibta uu ku sameynayo iyo hooyadeed dhibta ay ku sameyn doonto waxayna oo ogaatay inay dhibtan u yartahay anta oo ay shirweyne ballaaran isugu imaadeen Ragland waxa la isku gartayna in dumarka aan meher $1,000 ka badan la siin yes ayga Soomaali u imaanay waxa waaye in aan u socdo wiilkayga yar oo 3 sano ka maqanaay hadda asaga saaxiib yaan soo dhawaada maanta reaction-kana waxaan ku bilaabi doonaa Sundus ayaan le oo magaalada si gobanimo leh walaaltinimo leh oo kal iyo laab lagu soo dhaweeyay fadhigana looga kacay iyadoo sheegtay in imaanshaha Soomaaliya ay imaanayso cunugeeda in ay soo booqan doonto oo waqti ay la qaadan doonto iyadoo ka maqnayd muddo 3 sano ah bal hadaladeeda iyo dadka soo dhaweeyay hal iyo laba ka dhigi doona si daawada iyo number 1 ina arko aad ayaa ugu xiisay hooy aad ayaa ugu xiisay insha Allah waa soo socda oo ku imaanaya Masciido dhalinyaradan waa dhalinyaradii soo dhaweynta isku diyaarinayo oo raba in ay soo dhaweeyaan gabadhaas magaaladana ay u shidaan way imaaday waatsaa wixii dhalinyaro ah oo caanka ahaa dhan waa isku imaadeen fadhiga looga kacay wiil iyo gabar caame iyo dhalinyaro nin walba waa uu soo dhaweeyay oo magaalada waa loo qarxiyay dhalinyarada idin muuqato oo ujeedaan waa dhalinyaradii caanka ahaa oo madaxweynaha TikTok Bilaal Bulshaawi uu ugu weyn yahay si weyn oo milgalah loo soo dhaweeyay shalay magaalada Muqdisho marka inaba caadi ma ahan mahad celinteedii iyo wixii hal mar dhageysano ka bacdi holahan kan sii galno soo dhaweyntan quruxda badan maadaama tartiib shaqo baad aad ugu xusanahay qalbigayga su'aalaha la isweydiinayo oo ayaantan baraha bulshada la wareejinayo waxay tahay maxay tahay sababta oo Asad Xaji uu imaaday oo arrimahan uu imaaday oo Umar uu imaaday oo gabadhan Sundus leeyahay uu imaaday dhalinyarada social media caanka kuwooda ugu saameynta badan sababta maalin walba ay Malaysia ay u imaanayaan maxay tahay yaa fangareenooy ujeedka laga leeyahay maxaa waaye ma iyaga iska imaaday ama cid kala wado ma dan kala laga leeyahay waxaas oo dhan waxaan soo dhigi doonaa Facebook page-kayga qaybta commentiga ama hada YouTube-ka iga daawanaysa qaybta commentiga ay soo dhigi doonaa halkaas ka akhriso dadkan iskama aysan imaanin waa la fangareenooyaa ujeedo fogaa laga leeyahay shaqooyin badan lagu qaban rabaa bilooyinkan ugu soo aadan waxaa arki doontaan dhalinyaro kale oo iyagana caan ah oo magaalada Muqdisho isugu imaaday sidoo kale waxaad arki doontaan magaalada Muqdisho oo xaflad weyn oo saameynteeda leh laga dhigi doono hadalkaas aniga iga qor taas oo barnaamijyada qaar la dhaxmarsan doono garaadka hadduu saxan yahay ama hadduu fog yahay ha shaqeeyo maskaxda ka shaqeysii aniga filaarta waa kugu ifiyay adiga si reex laakiin aragtideedii iyo waxay tahay qaybta hoose ee commentiga Facebook page-ka iyo Master Kimitaan ay ku qoran tahay dhigay fadlan ka soo akhriso hawshan aan sii wadano sidaan ognahay markii gabadhan la soo dhaweynayay gabadhan magaciisa fiican ma xasuusto wajigeedu wuxuu cusub yahay saan filayo gabadhan iyo marka waxaan isdagaalay Bilaal Bulshaawi sida la sheegayna Bilaal Bulshaawi gabadhan wuxuu hoogo yar u diiday in ay la kulanto Sundus iyadoo ka xanaaqday oo hoogo arintaas ay ka gadooday buuq badan meesha ay ka sameysay marka buuqa ay sameysay waxa kamid ahaa sidan
waa kana waa ujeediin qof xanaaqsan oo dhagax wato waxay rabtaa gabadhii meesha la soo dhaweynayay in ay dhagax ku tuurto bilal bishaan waa uu ka qabtay waa uu diiday ase yeeshee waa ay ka gudubtay arrinkaas koley buuqaasaa meesha ka dhacay buuqaas waxaa goobjoog u ahaa qays qiso oo arrintan daadiye ka ahaa ama si hoose ula socday asagana faahfaahintiisa dhegeysan doonaa hal ila waa ka dhihi doonaa daawasho wanaagsan asagana waxay isku dayday inay bilaal dardarto ee gabadhii u tagto sunta u tagto maadaama ani meesha taagnaa waa sidii hadda ay sheegayay kolley malaha gabadhan iyo in ay isla kulmaan may rabeen dagaal kale oo dad kale ma ka dhaxaysay ma fahmi karo laakiin inay u tagtay rabtay bilaalna uu u diiday sidaas iyada ay gudud ku sameysay oo buuq iyo rabsho ay ku sameysay bilaal u tagtay dardartay rabtay maadaama inay bilaal dardartay rabtay bilaal meeshii uu taagan yahay gacanta ku qabto wuxuu yiri maxaa ka qadbay socotaa sunta saarayna lama ogola xaq istaagu la gacanta ku qabto wajiida gees u istaajiyay bilaal markuu saa u sii istaajinay qofka labaad oo ay bilaal u dhixiyaan oo ahay cid aragtay ama isla markii qabtay waxa dhacday in lagu duubo maartaa waa is ooyinaysaa duubo in lagu duubo daartidna waa lagu duuba adoo ooyinay daarbina wajiga u dad waxa dhahay walaalay macani gees aad bilaal waxa ugu dhuftay muxuu ii jiido waxa ma arrinta qays waa sida uu sheegay waaye buuq saas oo ku dhashay wixii tafaasiil kale oo idinka u baahan tihiin TikTok iyo Facebook iyo meelaha kale ee dadka ay ku wadaagayaan aad kala socon doontaan halka ku dhaafno hoolanka si wadano qaladka baraabulshaaw oo ka galay dilka أنا وعلمي كسر كمية كل دول كم صابحين طلعن كدستاني عدنا كعبسنا ما تمجرتو لكن أنا ما تدمر أصلا نرك صوبته أنا قاعد يوخد من شيء كراني وحالته وين أفبر قدر جوادان دib hadii lagu geystay ilaah ku haysta insha Allah wax kale ma ku dhigi karaan dib hadii lagu geystay waa uu ka khaldan yahay hadii dib uu ku geysto sax taa waay hadii buuq kale inaad sameysata arabtana dee adiga iyo khiyaarkaaga weligeed la isku dhigi jiray weligeed la isaan jiray weligeed la ismaan jiray adiga iyo khiyaarkaaga soy magaalada muqdisho ayaantan soo dhaweynay ka dhamaan laadahay waa qof kastoo imaado waa loo kala kicinayaa anigana waa ii gaari doonta insha Allah in markayga saan iyo ka daran la igu kala kiciyo oo magaalada muqdisho saas madaxa loo bixiyo inkastoo hadda aniga magaalada muqdisho joogo ase yeeshee meel kale hadaa tago in aan qof magac leh oo saameyn leh inaan noqdo waan jeclahay saaxiib dhawaay dheeraab mar un way noqon ilaahay idinkii ibraahim yuusuf hawd had iyo jeer baraha bulshada waxaad kala socoteen ama 48 saac la soo dhaafay aad loo hadalay wiil iyo gabar oo isa dhashay oo iskufsaday ama anshaxumo isku sameeyay arrintaas oo baraha bulshada aad u gilgishay weli ma la arkin waa qofkii ugu horeeyay ee walaashiisa ama gabar dhalatay farxumeyn ku sameeyo weligeed waa la arki jiray ilmaha dariska ama ilmaha isku xaafada ah in ay farxumeyntaasi wax ay sameeyaan laakiin laba dhalatay oo isku guri joogto in ay anshaxudaas ay sameeyaan weli xitaa iyagoo isticmaalaya baraha bulshada Facebook iyo Telegramka iyo TikTok in ay soo dhigayaan wax la filanayo ama la saadaalinayo arrintaas ma aysan ahayn waxaana la sheegayaa in arrintan dad badan ay ku lug leeyihiin oo ay ka weyn tahay ilmaha yaryarka ah marka falaqayaha weyn ee shafka birta nool ayaa hal iyo labo ra'yigiisa ka dhibtay asagana waan dhageysan doonaa sida uu sheegayna anigu 100% waan ku raacsanahay ra'yigiisa waa qabaa legend soo dhawow bal ku soco ayaa waxaan xasuustay markaan labadan yar ee caruurta muuqaalkooga arkay qormo uu beri hore soo qoray oo u dhignayd dhulka Soomaalidu waa cadaabta caruurta wiilkan yar iyo gabadhan yar wiilkana gabadha wuxuu ku qasbayaa inuu anshaxumo ku sameeyo halka ay gabadhu rabto inay ka baxsato balse uu u adeegsaday qori ka samaysan cabsi taasoo uu ku dhahay hooyan ku sheegay gabadha yar waxa dabray ee dhibta inay u adkaysato u ogolaaday ilmaha in la garaaco ama la dilo dhibaatooyinka laga dhaxlo waxa ka mid ah dhibaatooyinkaas
in mar walba lagugu handado hooyadan kugu sheega ama aabahan kugu sheegaa taas oo dee dhibaato badan maanta hadda ujeeda ficlan dhacday in gabadhii ay isdhiibto oo cunugii waxa uu rabo uu ka samaysto waa cabsida ay waalidku ku beereen kaba soo qaad gabadhaar inay ka baxsato isaguna uu hooyadii u sheego hadhow toole bal ciqaabta ay mudan lahayd maxay tahay ay ka doorbiday in imka sidaa lagu sameeyo waa painful habka aan ubadka u korina waa bullshit waalidiinta qaarkood waxaad is leedahay waaba bahalo guriga dhex fadhiya gabadhaayar waalidka koriyay waa libaaxiyo waa shabeelo waa wallahi beentiisa ma ahaniyo waalidiinta qaar ilmaha way ay cadaadiyaan dhibaato badan ay u geystaan cunugaaga oo ka ordan hadaa aragtid adiga qaladka iska leeyahay isaga ma ahan cunugaaga sidaa ula dhaqantid oo asagana bulshada ula dhaqmi doonaa oo ficiis ula dhaqmi doonaa marka ilmaha si wanaagsan loo tarbiyeeyo xumaanta laga daayo waxyaabaha anshax xunna laga ilaaliyo gallo waa bahalo guriga ugu nool yacni waxay door biday halkii isbadbaadin lahayd inay ka baqdo dhibta ay hadhow u geysan lahayn waxay isbarbar dhigtay ilmahan yar dhibta uu ku sameynayo iyo hooyadeed dhibta ay ku sameyn doonto waxayna oo ogaatay inay dhibtani u yartahay habka wallahi beentiisa ma wallahi cabsi ay ka qabto waalidka daraaddeed dhibaatada u sameysay hor waalidkaas waalid fiican maahan ilaahay kolley asaa ogo wax walba la socdee wallahi waalidkaas waalid oo si kale oo ubadka loo koriyo way inagu yartahay ma fahanti gabadha yar qalad weyn waalidkeeda ka galay wiilka yar baa ka galay I'm sorry sida loo barbaariyay habkii ay isku difaaci lahayd yaa laga dilay mana difaacayaan waxay ka dhigeen bahaayin aan xaqeeda u doodi karin awoodna uma laha inay hooyadeed u sheegto wayna ka baqaysaa habka aynu ubadka u korinaa waa hab liita oo bool shafka birta nool legend salaan xaq u leedahay sida fiican ee qorxoon ee ra'yiga u dhibatay dhacdada ka dhacday magaalada muqdisho ee kufsiga ilmaha yaryarka ee 2025 waa dhacdadii ugu horeysay laba nin oo isla dhalatay ama laba cunug oo isla dhalatay ay isku saayaan neew ra'yigaaga iyo aragtidaada aad u maasan tahay waxa codeeyay oo ninkan ku raacay aragtidaas oo la dhacay 87,000 oo qof oo videogan like saartay sida halkan idin kaga muuqdo sidoo kale waxaa repost taabtay dadkii social media ugu caansanaa ee ugu waaweynaa waxaa koow ka ah hadaa magacyadooda idin sheego Sharba Boy sidoo kale waxaa laba ka ah Rashka Boy sidoo kale Tolkey Aadan Sahan Zainab Jubba Mali ninkay dhahan dadkii ugu caansanaa ee social media ayaa iyagan repostiga u sii taabtay iyagoo videogan la dhacsan sida ra'yigiisu ugu dhibtay shafka birta nool shaf ikraam saaco ku salaama halkaas aan u gudbinaa hawshan kan si galno wallahi kulli aniga hindhahayga waxaan saaray shalay oo mar aan mooto waday xayaad agteeda aan joogay dhalinyarada video iska duubaysay ayagoo video duubayo arrintan hadda social media ka socota ee baawarka in la isku dhigo ee casriga la isku dhigo ee mootada in la isku dhigo ah ay sameynayeen mootay isku dhigeen mootada ay isku dhigeen marka feekoona ahayd daf ay way qaadeen meeshii oo dhan jaam ay ka dhigeen buuq iyo sawaxna ka dhacay laamiga xaq uma leehid adigoo shacaba inaad soo gashid in aad video ka duubatid laamiga waxaa loo talagalay baawarta inay maraan dadka in laga istaago ay gudbaan laakiin inaad video iskaga dhex duubato weliba laamiga isagoo jaam ah oo baawartii wax walba ay kala gudbayaan magaalada muqdisho ma ogtahay dhalinyarada feekoonta wado waxaa waay bilbiligii taabugooda u dheer wax miiro ay leeyihiin ma lahan oo kiyaala garas ay wataan dhibaataa lagu geysan hadda ninkaas isbitaal loola orday asaana nafsadiisii wax isku geeyey lambar 1 waxaa qaldan dadka video like saaraya lambar 1 iyaga qaldan hadda video like waa saaray laakiin sababta u saaray waxay tahay in aan ka hadlaa roobina tusaalaha markaan ka hadlayo wixii aan rabo like saara hadhowtiina waa kala noqdaa marka like saartid wixii oo videoyaasha like ta saartay oo dhan listay ku galayaan oo hal leen ku galayaan waa ka soo hadlaa ka bacdin wixii xun waa kala noqdo wixii fiicanna sidoo ay ugu saaraa oo waa u saarnaysaa dadka video dhiirigelinay koow ka tahay hadda commentiyada ugu horeeya hadaa fiirso commentiyada ugu horeeya hadaa hal iyo laba ka dhahno waxay leeyihiin saaxiib soo badi next talent yaa leedahay ka hor ilaahay ku dhashay fiiriya dulmiga inta la fiiri
dadku way kaa baalayaan hadhowt markii lagu dilina aday ku taalaa ninkan hadda ku leh saaxiib soo badi talent yaa leedahay waxaa waay dantaada kama usan talin ee waxa uu ka taliyey geeridaada sidoo kale meesha waxaa ku qoran talent man nakiste cabdibile mid meesha wuxuu leeyahay nakiste cabdibile kusoo sameeyey waa kan hadda ujeediin haddaa idin dheereeyo nakiste cabdibile kusoo sameeyey marka waa dareemi kartaa dee cabdibile ordka ay kasii diinaysa la ogyahay haddaa isku dhigtid waxaa waaye kafantaada diyaar waa saaxiib niyo batatan videogan sidiisa waa khalad in la sameeyana waa khalad marka dhalinyarada videoyaashan like saaraayo ilaahay ka cabsada iyo kuwa commentiyada qoraayo oo nimankan ku dhiirigelinaya in ay baawarta iska soo duubaan ficilkan ficil fiican ma ahan dhalinyarada yaa la haligin iyagoo caanimo raadinayo meel xun yaa laga tuurin aniga waa ra'yigayga intaasaan ku dhaafaa gabadhan waa gabadhii social media la hadlaayay Umer markuu imaanayay garabka dambe ka qabsanaysay Umer ugu dambeyn waa ay kulmeen video la soo duubay wixii dhacayna raaligelin uu ka bixiyay ninka calaamadiisa ka faqa mar haddii raaligelin uu ka bixiyay gabadhiina uu TikTok u qarxiyay oo videoyaal uu la duubay wixii iyada ay rabtana ay ka heshay ama ha jeclaato ama ay jeclaaneen calaamadiisa iskaga faqa rufyaanimadii dadka isku dirkoodana ma fiicno ilaahay laga cabsado baal sharafi karaamo gabadhaas TikTok oo awalkii way lahayd oo si kala kiciyay waayna arkay inkastoo hada videogi uu ii gambiyey oona soo qaadan marka kaasaaba sharafi iyo karaamo idin kugu filan howlahan kan sii wadano sida jawaac loo yeelay meesha hadda u jeedaa ninka uu soo ordaayo waa soo dhaweyn qof buu soo dhaweyn u sameeyay Afrikaantan wax kasta oo ay lacag ku qaadan karaan ama si kasta oo ay lacag u sameyn karaan lacagta waa ay sameeyaan oo waa ay qaataan hadda waa u jeedaa ninka khamiiska soo gashay sida uu orday u jeedaan ninka hadda sida uu orday u jeedaan qof uu soo dhaweynaya marka lacagta uu ka qaatay feerihiisa ay ka jaran tahay bal aragna isagana kuwiin hagar gidr la leeyahay nimanka sac isku tuutuso gabadh yar miskiinada kulli waxa la yiri xaliimo loo waayay waa habaar marka gabadhaas iyadana gabar kale garaacday xaliimadan iyadana waxay taagan tahay qofta aniga la ii balamiyo aniga ayaa dhulka ka taagayo oo aniga isku faca hadalada hal ilaa waan ka dhageysano كومنتي بس كدر بحد دلملي يا نايا نمان كاستوسا سان نمنا قبا هوست uga jirta istri niman kan maxaa la TikTok rada meestagtagan hasreen agtu waa geesida ku qaatay gabadhan naaya dumar laanimo xataa maxay weeday gabadha meesha ku dhir baaxday ilaan gabadhan waxay ka tagaashan tahay xeerka dumarka in dadkaas oo baraha bulshada ku jiro gabadhaas meesha lagu bahdilay ay ka xanaaqsan tahay xanaaqeeda ma tari doona wallahi bila wajil qaatana milihid ana wala dhulka ka taagla aniga kala la balansaa dadka neefadii hay ganac buuran la dacid iska cilin sax iska cilin hoolan bas iska cilinayd sida dadka hoosta uga jirto uga baqday waa la ogyahay maxaa dadka iska tusaa kamarad baa kugu socota video waxa lagu qabtaa istri videoguna waa lagu duubay naa dulmilay gabadha yar miskiinta aad kortay wallahi bila inay dhulka ka taagtay naagta in la karbaashka aniga wax kama dhigi karo karbaashkan qofku ku socday qofku ka socday asay u taalaa dumarland iyo heerkooda iyo shaxdooda idinka intaan la ama isxalaya ama isdagaal idinka intaan la jaw markaad faqiir tahay oo aad isleedahay gabadhaadana ay ku leedahay dooro iyo soo gad waxaa la cunay jayniiska ay cunay iyo soo gad ay ku leedahay ha iswaalin adi shaashada la geey tartiibka u soo qaad afka baan u gelay ilmaha waa la siri karaa adi biya meeshu yaala biyo isku siisanaa tartiibkiis maba iswaalayo dhag inay cunaysa iska dhigay firsay ay bataantaan ay waa cunaysa de aba asafariyo dhuuqo sidii in wax cunay camal arninka waa siri wallahi gabadha waa siri wala gabadha waa lagu sirina oy aba biski kaane soo dhagaha kaga dhaji wallahi dhagaha kaga dhaji in warsaaxa u yeelan kiniyo ayaa biyan ayaa warninki ida madax laga xir camal oo urureeyo wallahi
برافو اللي ودي قواتان عجل ودي فيديو asagana aad baraha bulshada loo wareejinayay iyadoo dadka ay lahaayeen ugu dambeyn Yurub miyaa tagtay Master DJ Dhusa ninka dhaan qof walba riyo uu leeyahay hami uu leeyahay qof walba inuu meel u tago rabaa qofkana hamigiisa hankiisii waa uu gaaray oo Yurubtii iyo waxa uu isaga tahriibka u galay waa uu gaaray kulay ilaahay waxaan ka baranaynaa inuu meeshiisa ku amaan yeelo waxa way nolosha u raadiyay iyo wixii uu raadiyay inuu ilaahay siiyo anagana meesheena iyo wadankeena inuu ilaahay noo yeelo أصحابتي قاليقا كل فيديو يعني هالكاسة كسوق جوينا فضلا فيديو هدي كاشاي لايك صار سيني شير جري أنيقا سبسكرايب تعمل فولو ده قرقرتن كمان قالوا ما أنا كفتمو ديجي دعان كي جوايا يقول ساعد هالفولو إنا إسيسد أما هال سبسكرايب إسيسد ما أنت يا أبا هنا هاي قرب كاجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.